يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. معجزة marka la leeyahay waa shay ilaahay oo calaamad uga dhigay rasuulka uu soo diray oo ka marxaati kacaya oo cadeynaya risaalada rasuulka. waa shay lagu tilmaamay inuu yahay khaariq lil caada. waxa caadiga ah buu ka baxsan yahay oo dhaafsan yahay. dad caadi ma sameyn karaan cid aan rasuul ahayn. awood ilaahay weeyo oo alla uu ku xoojiyay rasuulka. mucjisaadka xikmadda ilaahay uu siiyay rasuushana waxa weeye dadku marka had iyo jeer gaala ay yihiin ee loo soo diro rasuulka ma qaadanayaan kol haddaana isagii aaminsanayn qowlkiisii ma qaadanayaan. laakiin waa in la helaa horta isagii rasuulkan laftiisa wax ku qanciya shay ku qanciya waa in la helaa oo markay rasuulka ku qancaan ay qaataan ayay qowlkiisina qaadanayaan. midalan iyagoo dadku aanay rasuulkiiba aaminsanayn rasuulnimadiisa hadduu yidhaahdo ilaahay baa yidhi oo aayadana sidan ahoo uu u keeno u soo daliiliyo qur'aan iyo waxyi dee ma qaadanayaano waxay leeyihiin dee adigiiba kuma rumaysnina maxaanu hadalkaaga qaadanaa. marka si qowlkiisa ay u qaataan horta waa inay isaga qaataan. isaga siday ku qaadanayaanna waa in loo dhiibaa oo ilaahay uu siiyaa rasuulka waxyaabo ummadan isaga ku qanciya. marka isaga ku qancaan bay qowlkiisana ku qancayaan. mucjisada horta xikmadda iyo faa'iidada loo siiyay waa sidaa weeye. sidaa daraaddeed ayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sugnaa rasuul walba ilaahay wuxuu siiyaa aayaadka iyo mucjisaadka shayga uu basharka ama bani aadamka wakhtigaa joogaa ku rumaynayo ayaa ilaahay u siiyaa. sidaa daraaddeed baa nebi muuse calayhi salaam wakhtigiisii ilaahay wuxuu siiyey wixii dadku markaa ay arkayeen inuu yahay wax la yaab leh oo sixirka ahaa wax sii aamusiyey oo ushiisii cajaa'ibka lahayda. sixirka ayaa loo arkayay wax la yaab badan oo cajiiba laakiin sixirkiiba wax ka sii awood batay oo liqay oo ushiiya markii la siiyey ayaa waxay garteen wuxuu nebi muuse wado inaanu ahayn sixir siduu fircoon sheegay laakiin uu mucjiso yahay. ciddii ilaahay hanuuninaya way garatay. waqtigii nebi ciise calayhi salaam waxaa badnaa dadku inay isugu faanaan cilmiga caafimaadka iyo daaweynta. markaa wixii ay ka caajiseen khubaradii caafimaadka iyo ciddii wax daaweyn jirtay ayaa ciddii ay ka daalaan ayaa ilaahay wuxuu u sahlay nebi ciise inuu daaweeyo. saa daraaddeed baa masiix lagu magacaabay. kaana yamsaxu lcaahaat wixii caaha ah oo dhan buu masaxayaa. macnaa wixii ceeba hadday tahay dhagala'aantii indhala-aantii barastii dadkii dhintayba ayuu leeyahy soo baxa sida qur-aanku sheegay ilaahay idamkii ku soo noolaada. markaasay awoodda alle ku soo noolaanayeen iyadoo nebi ciisena mucjiso ay u tahay. rasuulka ilaahay wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam anigana waxa la siiyey waxyi ilaahay uu waxyooday oo qur-aankaas. saa daraaddeed mucjisada u horeysa ee aynu sheegayno ee uu nebigu cadeeyay waxa weeye qur-aanka kariimka ah. waa akbar mucjiza khaalida lirasuuli sala allahu calayhi wasalam. mucjisada u weyn ee nebi maxamed ilaahay uu siiyey ee waaraysa ee qur-aanka ah waa mucjisada koobaad weeye. siduu qur-aanku mucjis u yahay waxa weeye mucjisaaska rasuulka u noqday dee waqtigii nebiga la soo diray waxaa jiray dad hadal cun ah oo aftahana
oo fasaaxad iyo balaaqad badan loo hadalka kala dhigdhigay oo sarifa ilaahay baa la hadlay wuxuu fa'tuu bi suuratin min mithli hadaa leedihiin quraanka maxamed baa keenay iyo waa aftahan oo isaga inta isku soo hagaajiyay bal idinkuba suurad quraanka oo kala keena waa dhaabad baa looga dhigay ilaahay uu ku hor joogsaday way keeni kari waayeen mar haday keeni kari waayeen taasi waxay muujinaysaa inuu quraankan yahay mucjiso ilaahay xaqiisa ka timi oo nabiga lagu xoojiyay calayhi salaatu wasalaam saadaradeed mucjisadaasi la yaabka badan ee quraanku waxay kaga duwan tahay mucjisooyinka kale oo dhan mucjisooyinka kale waxay la dhintaan ama la tagaan rasuulka waadiya jeer rusushu marka ay dhintaan de mucjisooyinkoodiina meesha way ka baxaan laakiin mucjisada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo quraanka sidii ilaahay ugu keenay bay ku joogtaa oo ilaahay baa inagu manaystay taa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafizuun ilaahayna saad bay u badan mucjisooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam quraanka qaar ko tilmaamay iqtarabat as-saa'atu wa shaqqa al-qamar waxa quraanku uu tilmaamay inay qiyaamadiiba soo dhawaato dayixiba soo kala dilaacay codsigu aha nimanka gaaleed ay u soo jeediyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo islaha suura galin kari maayo ayaa waxay yiraahdeen bal hadii aad rasuul tahay dayixa soo kala dilaacay ilaahay baa u rumeeyay markuu nabigu codsaday calayhi salaatu wasalaam saadaradeed ba dayixi laba boorooda maka hareereeda uu ku soo fadhiistay de qofka iimaan laawihi waa inkaar qabe may rumaynine waxay yiraahdeen uu sixirkiisi dhulka intuu dhaafo cirka gaaray ayaan darada halkaas ay gaadhay sooyinkiisa waxa macnawiga waxa kamid aha Anas ibn Malik Allah ka raali noqdo markuu nabi Muhammad dhintay ayaa uu warbixiyo wuxuu yiri maalintu rasuulku soo galay sallallahu alayhi wasallam Madiina adaa'at minha kullu shay wax waliba uu iftiin dadka qalbigooda uu iftiimaya oo arkayo ayaanu aragnay dal iyo dadba uu nuuray maalintu nabigu naga geeriyoodayna wax wal oo Madiina kamidiba uu madoobaaday حتى أنكرنا قلوبنا إلى قلبك يجي أنو قرن ويني وأنك لفتك يجي إسفهم كيجي وحكس النقدين ومعجزات كمعنوية رسولك صلى الله عليه وسلم معجزات كنبي وحا كمدها إساق إيا أصحابتي سيقو فوشان بورت أحد أيا بورتو أي مرقانت معناها وي فرح وي قلقلانيس إسكتشوك بو نبي الله عليه الصلاة والسلام وحا كساران بوري هاي رسول إلهي أما النبي محمد يا شهادتي يا صديقينتي أيا دشاده سارنا إسكتشوك أثبت فرحت بيلقي الجلت وبوردنا 6 كيلومتر كله اهتزت دميت كلام فلا يو عرر لها أما هو كفر لها رسول قوة أفكارنا يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام مال المعلمها كم ذا أيا أصحابته الله كرر للنقدة يجوا أسفر كتير أي بيواين صلاة عصرنا ويسوقش نبي أيا الله شيء عليه الصلاة والسلام أرنكي مركي الأوجيسي وحولون إن بيالك على أنت الحياة ولا عليا وإن هلقف وكويس استمر كائسق وكويس يسلها أيا الله كان النبي عليه الصلاة والسلام فريه سوسدا ودحدقي كدب نوح عن الكيبول فرها دحدوده وأي سدا وجسوا بتاعيان بيو قوضة هيان سدا بيها ماحدة عيلك ويرك أكسو بودية سدو ديو كلا أي نبي وجسوا بودية فريز marka amar buu bixiyo wuxuu lahaa laga weysiistay biyaha dadkii meesha joogay oo dhami way weysiisteen colkii meesha joogay asxaabigu waxa uu leeyahay hadaanu 100 ku noqon lahay way nagu filaan lahay biyahaasi si u soconayeen iyaduna macruuf ahayd asxaabiga la oran jiray Abdullah ibn Atiq waxa uu nabigu u diray nin gaal ahaayo أبو رافع اللي أورنجلو يهوديها والنبي عايش ده عليه الصلاة والسلام نينكي وسود لي لكن مركو فلنا عمليات دي هولقلكي وكي أصحابي يقول لك تكتشبي رامد دي سيبو كدو الضوبي صاحبة دي سيبا سيتو كبيرو نبي جايوغا يعني سقط شبان رسولك صلى الله عليه وسلم قعنتو بمريه قعنت أيوم بمريه سيدي بيكون بقصت oo ku caafimaadey asxaabigaas meelaha biyalaantu ay ka dhacdo waxa ilaahay mucjiso uga dhigay nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu ilaahay ku soo saari jiray meesha biyaha laga waayay
barakadiisa mucjisana ay wahay maalintii Uhud waxay ahayd sanadii aan ilaahnay maalintii sulxul Xudaybiya heshiiskii Xudaybiya waa sanadii lixaad rasuulku sallallahu alayhi wasallam Maka ayuu agteeda yimid wuxuu doonayay Maka inuu ku soo umraysto laakiin nimankii gaalada ahaa u diiday oo yiri sanadkan gali maysi colku waa 1200 waxa la waayay biyo la'aan baa dhacday nabiga waa loo soo cawday calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa mid baraka badan baa rasuulka uu ka dhigay dhinacyo fara badan aqoontii awoodii astaamihii caafimaadkii biyihii dhinac walba barakadii rasuulka ummaddu way ka hirqanaysaa oo way ka haraad baxaysaa markii ay u soo cawdeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu yimid ceelkii Xudaybiya oo guray oo finisha iyaroo biya ayuu ku luqluqday rasuulku sallallahu alayhi wasallam markaasuu ku tufay ceelkii biyo yarun ku luqluqday uu ku tufay ku tufidaasi waa turqid sidii samsam kaba ilaahay malagii ugu diray ee riiga halka uga dalooliyay sidoo kale nabiguna markuu ku tufay ayay ceelkii biyihii soo jawaab wuxuu ku soo jawaabiyay aad u badan oo butaacaya markaasaa xoolihii iyo dadkii intiiba ka cabeen waa la dhiishaa dhaansaday wixii weel la hayayna waa laga buuxsaday oo la intifaacsaday mucjisooyinka nabiga waxa kamid ahaa calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay idamkii ku badin jiray raashinka yar Anas ibn Malik Allah ka raali noqdo ayaa qisay noo warinaya saxiixa waxa uu leeyahay maalmaha kamida ayaa waxa uu yimi hooyaday Sulaym odaygeedii Abu Talha ayaa u yimid marka Abu Talha muu dhalay Anas hooyadii waa Sulaym waxa uga dambeeyay aabihii Abu Talha uga dambeeyay marka waa adeer buu u yahay kol haday hooyadii wada joogaan Abu Talha nin la xajecla nabiga ka qabuha calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray rasuulkii ilaahay oo masaajidka jooga kadibna ila waa saaxiibkii oo uu garanayaa muuqaalkiisii buu sawirayo ishii buu kaga bogtay xaaskiisii Sulaym buu noqday oo Anas hooyadii wuxuu rasuulkii waxa iga muuqanayay diif iyo gaajo wixii aad raashin haysa waxba ka haysanine soo gudbi buu maxaa la hayaa dee duruuf baa iska jirta in yaroo la xooxabay haysa ama yar canjeera ah kadibna bahal ay haysay oo in subagii ku jirtay ubadii subagay soo yara marisay markaasay waxay ku soo laabtay maray ku soo laabtay inankeedii Anas bay u dhiibtay waxay tiri qaado nabigii u geey halka kilinkilada hoosteeda ay tiri halka ku ilaaliyo yaan la arkine bal nabigu ku hubso u geey Anas ibn Malik wuu socday nabigu u tagay calayhi salaatu wasalaam nabigu kolkii uu arkay inuu inankani doonayo ayaa wuxuu waxbaad sidaa ha Abu Talha ku soo diray ha asxaabtii buu la hadlay wuxuu soo baxa Abu Talha casuumad sameeyay nakaciya iyaba waa cajaayib nabigii iyo asxaabtii intii meesha joogtay way soo kaceen gurigii baa lagu soo hagaagay Abu Talha xaaskiisii ayaa uu la kulmay oo uu sheegay arintii iyaduna waxay tiri nabiga Soomaal ogeysiin waxa jira ha tii aqeeda fiican bay leedahay may qaylqaylinina waxay ogtay kalsoonidu nabigu qaba calayhi salaatu wasalaam halkiiba intii yarayde kibista ahayd ayuu nabigu barakeeyay calayhi salaatu wasalaam fafatta wa asharat Sulaym ukatan faadamatu nabigu weelkii buu bahashii ku burburiyay oo intuu weel ku riday buu ku burburiyay subagii yaraa lagu daray wixii ilaahay u sheegay ayuu ku akhriyay rasuulku sallallahu alayhi wasallam ee soo burqinaya soo badinay ayuu ku akhriyay ilaahay baa wax baray sidii bay ku badatay halkii meesha joogay oo badnaa Anas buu soo kala hor adiga jeer xooluhu marka ay ceelka cabayaan waa la soo horaa
kolba hormaa la soo daayaa kolba qayb anasoo kolba 10 nin uu soo daabu bal 10 nin oo gaajaysan maxaa fulinaya way dhergaan way dhaqaajiyaan kolba 10 way dhaqaajiyaan kolba 10 way dhaqaajiyaan ilaa ay wada dhergeen wixiina sidii yihiin yaanay mucjiso ahayn mucjiso wax aad u la yaab badan bay ahayd oo insaan caadi aanu samayn karin mucjisaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam aad bay u badan yihiin waxa ka mid ahaa markii hore intaan nabiga minbarka loo samaynin wuxuu akhriyi jiray khudbadda isagoo dhulka taagan geed buu sidaa u qabsan jiray ama jirid waqtigii dambe nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabta wuxuu ka codsaday minbar uu isku taago oo kor u dheereeyo in loo soo sameeyo minbarkii waa loo soo sameeyey markuu minbarkii u baxay uu fuulay waxa cabasha ay ka timid tiirkii muddada dheer uu cuskanaya ee sidaa ugu tiirsan jiray oo geeda oo qallalan oo halkan ah ayaa cabasha ay ka timid kolkaasaa wuu dananay ama sida neefka geela ah ee dhala ilmihiisa cida uu u sameeyo oo kale ayaa uu geedkaasi ku dhawaaqay kadibna nabigu u afkartay calayhi salaatu wasalaam dadka kale waa laga yaabaa inay yaabaan waa maxay geedkan codku ka baxayo intuu soo degay ayuu sidaa u masaxay isku yara dhajiyey wuu aamusiyey waa min mucjisaatin sala allahu calayhi wasalam ma nooluhu xataa rasuulka wuu jeclaa calayhi salaatu wasalaam waana ixtiraami jiray rasuulku wuxuu yihi kaana yusallimu calaya xajar waana bimaka dhagax baa i salaami jiray anoo maka jooga dhagaxantu rasuulka waa salaami jirtay geeduhu waa ka amar qaadan jireen oo rasuulku aad buu u xishood badnaa markuu doonay inuu xaajo guto dhirta ayuu u yeedhi jiro saa u hareereyn jirtay markuu dantiisa dhammaystana waa kala diri jiro amarkiisay qaadan jireen wakadalika xayawaanaadku rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa jeclaa waa u soo ashkatoon jireen awr baa rasuulka u yimi oo dhegta afka ka saaray waxbuu u sheegay ilaahay baa fahamsiiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi war ninka awrkan ninkii lahaa mee nin dhalinyaro ansaara baa yimi oo yidhi aniga ayaa leh rasuulka ilaahay wuxuu yihi uu cabanaya awrkan wuxuu ka cabanayaa inaad aada ugu shaqayso oo aanad nasin wax ku filanna aanad sin ee u naxariista bahaa'imtan ma yeedhaankan ilaahay subxaana wa tacaala uu idin siiye rabbi uu idinku nicmeeyey candhuufta afkiisa ilaahay uu ku abuuray lama mid ahayna candhuufta dadka kale waxay candhuuf ilaahay subxaana wa tacaala uu barakeeyey oo qofka gaajo ka biinaysa oo awood u yeelaysa iyo xoog ilaahay subxaana wa tacaala dad fara badan oo bukay oo xanuunsanayey ayaa candhuufta rasuulka uu ku caafiyey waxaa tusaale u ah maalintii loo baxayey dagaalkii khaybar waxaa rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim saxaabada uu weydiiyey cali mee waxaa loo sheegay cali inuu xanuunsanayo oo indhaha bakoora ay kaga dhacday ama xanuunka daafka la yidhaahdo rasuulku wuxuu yidhi ha loo yeedho cali baa la keeno oo indhaha isku haysta rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim wuu ku tufay isagoo qur-aan iyo ducooyin ku akhriyey waanuu bogsaday cali adduunyada ilaah baa udubkeeda taago awooddiisa mooyee amar kale ma yeesho oogadeeda laacdiyo aabigeeda lahashadu waa astaanta garashada aayaadka digayo indheergarad islaam oo iimaanle mooye aayaheeda ruux kale ma abqaali karayo runta maba ogaadee nebigii addoomaha abshir loogu dhiibow calayhi salaatu wassalaam nebigii aqoontiiyo xaqa noo iftiishow nebigii axkaamtiyo noo oogay faralkee eedaan salaad iyo arkaan noogu baaqow nebigii adduunkiiyo aakhiro warkeedii aayaad qur-aan iyo axaadiis ku sheegow nebigii ammaanada gaadhsiiyey uunkow nebigii akhlaaqdiiyo anshax noo horseedow nebigii ammaankiiyo ixsaan noogu deeqow nebigii agoonnimo maka adhi ku raacee aamin loogu yeedhow ambiyada ilaahay adiga u dambeeyo aadmiga dantiisaaad awooddaadii geliso anfariirka naartaad ka adkaysan weydee aflagaada iyo ceeb aynigaaga maaho anafada quraysh baa kaaga aaya weydo abujahal warkiisii dhagahaa ka awdmo argagaxa inkaartaa abulahab haleesho awoodaha ilaahay aadmisooma dhaafe ambaqaadka maantana darbaa uubateeyo aafada iblayskaa indhabeelka sidato aja iyo xumays buu arrinkooda geliyo ufa iyo dabayl baa araggoodii doorsho
ambadkiiyo irdhowgaa abataqan ka ridayo afkaan adiga kugu oo lama aamusiiyo ereygooda ceebeed waa aqoon la'aantee abaalkaaga ruux ogi asaraar ma geliyo ruuxii akhyaarihii ku ilaawi maayo aakhira ninkii ogi ifka siisan maayo aadmiga wax soli karaa waa addeecidaado ergadaadii nebiyow annagaa ajiibno amarkiiyo jidkaagaa ammaan noogu filano eediyo waxyeelladu iyagay ku noqotee ambashada sidoodii u abraari mayno ambiyadii la soo diray usha saari mayno alalaaska qaylada ku asooli mayne rabbiyow addoomaha adigaa abuuro axmaq iyo ibliis baa ku adeeganayo waa ayra geelo oo howda diiday idamkaaga eebbow iimaan ku siiyo abshir lagu hanuunana aayahooda geliyo xaqa inay ogaadaan ka dhig aragtidoodo abbaanduulahoodi iyo aynigooda waayeel kuwa ehlu khayriya ka dhig aamin wacano islaamka iyo shareecada noogu soo ilhaamee wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم